kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal halkani waa hadal wanaagsan radio 101.7 Edmonton sidaad horey inooga barateen waxaan idin haynaa barnaamij aad u xiiso badan oo aan ku wareysanayno Professor Axmed Cumar oo ah afhayeenka Awdal State Professor Axmed ku soo dhawow idaacadan hadal wanaagsan radio waa ku jira waan dhawahay baan u dhawahay Professor Axmed xiisadaha siyaasadeed ee hadda ka taagan Awdal sidaad uga warhaysaa horta marka ugu horeysa waan salaamayaa bahda radio hadal wanaagsan dhamaantiin iyo ummadda reer Awdal dhamaanteed baan salaamayaa iyo ummadda Soomaaliyeed ee dhawaaqaygan maqli doonta haddii aan yar dul maro marka xaalka siyaasadeed ee gobolka Awdal ka jira maanta guud ahaanba gobolka waxa horta saaran una qabatayn aan caadi ahayn oo dhaqaale iyo horumar bay iskugu jirta sida aan ognahay baabuurtii Djibouti iyo u dhaxaysay Awdal ee loo yacdo iyaga qudooda waxa lagu soo rogay cashuur aad iyo aad u culus sida darteed waxay joojiyeen shaqadii barkood halka waxaad aragtaa marka in meel kasta oo dadka reer Awdal dhaqaale ka doonayeen amba ay noloshooda ku kabayeenba in laga curyaamiyay haddii aad dhinaca kale eegno Saylac iyo Lughaya wixii lagala soo degayay ee dadkaasi kala soo degayeen iyagana waxa la saaray cashuur laba laab ku noqon karta taberbera laga qaado marka waxaana gardar rabaan u aragnaa waxa lagu xadgudbay marka oo jira iyaduna xorriyadii iyo madax banaanidii gobolka iyo dadkiisaba dhammaan waxa intaas ku soo kordhiray hadda oo la wadaa iyagana dhul ballaarsi labada dhinac ka socda Djibouti iyo Hargeysa dhul ballaarsigaas oo magaciisa la yiraahdo waqtigan bilaabmin kulli binu Axmed la yiraahdo baa isaguna ku socda gobolka oo iyaguna wax xaqiiqo jira waxa kale oo hadda la wadaa in dad la soo dejiyo aan dhulka u dhalin gobolka iyo Saylac dadkaasoo la leeyahay waa qaxootiyo waxay ku jiraan xerooyin ka tirsan Djibouti meel Cali Cabdallah iyo Holhol annaguna waxaan ognahay Cali Cabdallah iyo Holhol inay ciidan Djibouti degan yihiin marka sidaas baa jirta kolka siyaasadda guud ee dalku waa intaas aan oran lahaa dul maro Professor Axmed waxaan wada ognahay maanta madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Shiilaayo oo booqasho ku gaala bixinaya gobolada Awdal iyo Salal waa maxay ujeedada ka dambeysay booqashadaas horta imaatinkiisu waa anagu waxaan u aragnaa xaqdarro iyo gardarro oo gobol hoostaga ma jiro laakiin waayadanba kulli waa dabeecad u leeyahay oo marka gobolka Awdal wax laga fulinayo in ummadda la siixiyo la rabo uu yimaadaa si uu salaadiinta dadan siyaasadaba metelin oo dhaqanka ku salaysan si uu la yimaado hadda wuxuu tegayaa Lughaya sida igu maqaalaa Lughayana wuxuu dhigayaa dhagax marka dadka la soo dejinayaba wuxuu rabaa dhulka lagaga rarayo reer Awdal dadana dhulka u dhalin lagu keenayo inay ku bedeshaan reer Awdal dhagax iyo dhulna isma noqdaan marka waa dabeecad u leeyahay mar leeyba inuu been u sheego salaadiinta reer Awdal markastoo wax dhacaan una yimaado Awdal isagoo socdo ordaya waayo ma tego gobolada kaleba marka ay wax jiraan oo ma tego Laascaanood oo ma tego dhulka kale buu hoodle laakiin Awdal wuu yimaadaa marka waxana weeyaan dadkaas buu ka siixiyaa siyaasadooda waxaan ogolnahayna maaha maanta waanu soo jeednaa marka waanan u sheegaynaa inayna waxba uga soconaynin haddii alla yidhaahdo qaxootiga laga raraya Djibouti maxay ahaayeen xagee bay ka yimaadeen horta waa wax la isweydiiyo garanaysa malaha meesha ay ka yimaadeen qaxooti inay yihiin iyo inay wax kale yihiin cid cadaynaysa malaha meesha ay ka yimaadeenna lama garan karo
laakiin reer awdal maaha inta aan hubnaa xaqiiqadu waxa weeyaan reer awdal inayna ahayn dadkaasi waxay noqon karaan reer Djibouti oo waliba noqon kara ciidamada Djibouti ambase waxay noqon karaan dad ka yimiday 77kii Ethiopia ka soo qaxay marka reer awdal wixii ahaa waa ku noqdeen dalkooda waana joogaan waana iswada naqaanaa reer hebel iyo in hebel baan isku naqaanaa marka wax naga maqan ma jiraan marka ma garanayna dadkaasi meesha ay ka yimaadeen iyo meesha la keenay waxaan se u qoraynaa bal qolada United Nationska HRka qaxootiga qaabilsan in ay naga qanciyaan oo duwaankii dadkaasi noo keenaan iyo meesha ka yimaadeen Djibouti dadka ay ka leedahay maxay tahay laba shay baa ugu jira marka kulli hadda taliska Djibouti kolka dawladda Djibouti waan odhanaynaa reer Djibouti odhan mayno waayo dadku waa dadkayagii waa ummadayadii waa walaalahayo waan wada dhalanay wadankana waan wada leenahay waana wada degannahay laakiin xukuumadda Djibouti ka dhisan iyadu waxay wadataa dhul ballaarsi oo ah tii 89 ku bilowday baa kamid ah waxa kamid ah tii 48kii waxa kamid ah hadda wado Ismaaciil Cumar Geelle waxa kamid ah shirkii carta ee 8 qof lagu siiyay xildhibaan lagu dhisay baa kamid ah hadda wuxuu rabaa marka awood inuu ku qabto gobolka awdal lagu hayay iyo Seyla dantaas way ugu jirtaa dhul ballaarsigaas uu ugu jira aakhirataankan way suurta gelin kartaa deena lagu hayay Seyla ba lagu darsaday Djibouti waa waxyaabo suurta gelin kara waayo dadka la soo wada anagu ma aragno dad caadiya ama dad masaakiina waxaan u aragnaa inay ciidankiisa ka mid yihiin dadka waxa lagu qiyaasay 9,000 iyo wax ka badan taas buu kulli rabaa danta ugu jirto waa midaas talabaad waxa ku jira siyaasadda Djibouti iyo dhibta ummadda reer Djibouti uu ku hayo uu ku qarinaya markaa oo ah mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid waxbarasho iyo mid social waxaanu ognahay waxbarashada Djibouti meesha ay marayso caafimaadka Djibouti meesha ay marayso shaqaduna halkay marayso iyo shaqo la'aantu meesha ay marayso iyo meesha ay taagan tahay baanu ognahay waxaynu ognahay oo kale in oo laga sidii ummadda Djibouti laga qadiyay oo tartan loo ahayd amba dawo ahayd amba nolol kalaba ahayd in lagu dhiso hadiisiye Gibil oo hadda waxa ka cad tartanka laga dhisayo Gibil waa lacagtii ummadda reer Djibouti weeyaan hantidoodii ummadii reer Djibouti oo ka dawalaba halka la marinaya marka taana wuxuu ku qarinayaa inuu awdal khalkhaliyo oo sida uu sameeyo wuxuu ku qalinayaa dhibaatada kale oo ugu jirta ummadda reer Djibouti indhaha uu kaga xidhay marka oo ku jahaynayo qabiil uu leeyahay halkana la idinka qaatay iyo halkana la idinka dhacay labadaas siyaasadood baa ugu jirta Ismaaciil Cumar Geelle marka hawsha wada xukuumaddiisa Professor Ahmed waxa tahay afhayeenka Awdal State maxaa idin qorshaysan idinka hawlaha markaad eegto awdalka taagan maanta iyo xiisadahaas siyaasadii hore awdal way isbedeshay marka anaga waxa naga go'an inaan dhulka taladiisa iyo masiirkiisaba gacanta ku dhigno wixii dad aan shaqo ku lahayna aan ka qaadno kuwa dhulka u shaqo tagay ka dhashay reer awdal meesha u mishaar doonta Hargeysana waqtigeegan suulinaa marka kulli maxkamad baan iyaga keeni doonaa salaadiinta iyadana waxaan u sheegaynaa marka inay ka hadaan baan noo qorsaysan inay odayaal dhaqameed noqdaan ayna dhulkooda u noqdaan oday dhaqameed ay ka hadaan siyaasadda iyo inaynu shaqayntiyo hor orodka siyaasadeed waayo awdal maanta waxay leedahay aqoon iyo siyaasad iyo karti dad u qaban kara leedahay marka inay dadka ixtiraamaan baan iyagana leenahay annaguna waan u soconaa insha Allah ta'ala dalkii waanan tagaynaa hadii Allah yiraahdo waanan dadka iyaga iyo dalka iyagana waan jahaynaynaa marka intaan leenahay awoodayda Professor Ahmed Cumar aad iyo aad ayaan kugu mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga ah ee noo hortay haddaanu nahay bahda idaacadda hadal wanaag radio idinka aad u mudan idinka ku dhiibna hawl baa waxaan ummadda Soomaaliyeed dhammaanteedba marka ilaahay idinku garab galma intaa waxay noogu dhan barnaamijkii aanu ku wareysanaynay Professor Ahmed Cumar idinkuna dhageystayaal waad mahadsantihiin intaan mar kale ku kulmayno barnaamij la mida waa Cabdu Bakaal oo idin leh nabad ku waara She got a